waxaan maanta ku soo dhaweynay garoonka caalamiga ee aadan cabdulle cusmaan ee muqdisho wafdi sare ka socda midowga Afrika ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee wadanka South Africa Thabo Mbeki wafdigaasoo u xil saaran xalinta khilaafaadka mashaakiladaha Afrika ka jira oo gudoomiye ugu yahay madaxweyne Thabo Mbeki haddana waxay soo gaareen Soomaaliya inay arkaan xaaladaha wadanka iyo horumarka wadanka uu sameeyay ay ka mid tahay xagga siyaasadda xagga amniga iyo tan ugu weyn oo ah isku wadamada integration waxay yiraahdaan ama East African integration ka ay dawladda Soomaaliya ay ka mid ka tahay oo ah abuuridda isu socod iyo dhaqaale isu gudbi wadamada geeska Afrika wafdigaasi wuxuu joogi doonaa magaalada Muqdisho laba casho waxaanu la kulmi doonaan madaxweynaha dawladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay kaloo la kulmi doonaan qaar ka mid ah wasiirada oo hogaamin doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka kadibna waxay arki doonaan qaybaha UN-ka iyo IGAD iyo AMISOM oo degan ka shaqeeya wadanka inay u kulgalaan xaaladaha wadanka uu ku sugan yahay hadda waxaan aad ugu faraxsanahay inay muuqato in wadankii oo noqon rabo wadan aad u xasiloon ay wufuud ka mid yahay madaxweynihii hore Thabo Mbeki uu imaanayo uu ka soo qayb galayo shirar noocan ah laba habeen uu seexan doono hadduu ilaa raali ka yahay magaalada Muqdisho wafdiga la socda madaxweyne Thabo Mbeki waxa ka mid ah His Excellency Lamamra Ramtane oo ah EU Special Envoy-ga loogu shaqeeya sidii lagu joojin lahaa xabadaha silencing the gun ay dhahan waxa kaloo ka mid ah Special Envoy-ga IGAD u jooga Soomaaliya mudane Maxamed Guyo iyo waliba waxaan filaynaa inuu yimaado Mr. Prophet Omanga oo ah qaabilsanaha qaramada midoobay xogaha joogtada qaramada midoobay oo qaabilsan geeska Afrika marka wafdiga